Bismillah. Asalaamu calaykum walaalayaal waa walaalkiin Fiqi Axmed. Maanta waxaynu eegaynaa xaaladda aamustaanka ku qarsoon, xaalad sukuut almulaabis. Labada daraf ay heshiinayaan daraf ka mid ah ayaa aamusay, iyo xaaladaha ay noqon karaan in loo tixgeliyo aamustaankiisa mid shaqeeya. Aamusnaantu waxaa loo tixgeliyaa dabeecad taban maadaama aan loo tixgelin muujinta rabitaan. Qofku hadduu aamuso waxaa loo tixgeliyaa dabeecad taban waxaa waaye mid oo iijaabi ahayn oo salbi, maadaama aan loo tixgelin muujinta rabitaan. Laakiin waxaa loo tixgeliyaa aqbalaadda xaaladaha gaar ah. Qofka hadduu aamuso xaaladahan hadda soo socda ilaa 3 xaaladood hadduu qofka aamuso waxaa loo tixgelinayaa rabitaan. 1. Haddii dalabku uu faa'iido u leeyahay qofka loo sheegayo. 2. Haddii dabeecadda macaamilku ama caadada ganacsiga ka yeelayso aamusnaantiisa in uu aqbale oo kale. 3. Hadday jirtay isdhexgal hore oo u dhexeeyay labada dhinac iyo arrimo xiriir u ah tacaamulkan. Hadda waxaynu eegaynaa heshiisyada loo hoggaansamid. Carabiga wuxuu noqonaa cuquud al-idcaan. cuquud al-idcaan waa hal daraf mulzim lijanib, hal daraf bis ayaa awood oo kale oo dhan leh. Waa maxay heshiisyada loo hoggaansamida? Waa heshiisyo kaasoo u hoggaansamayo aqbalaha. Waxaa ku xiran shuruud loo soo bandhigay, korkortana uusan geli karin. Waa jaamacadaha oo kale, fiiga jaamacadaha ayaa ka mid ah, ama korontada sida beeko oo kale. Heshiisyada aynu ka galnay waa lacagtooda waa mid xadidan. Xiriirka uu ku leeyahay soo jeediyaha aqbalaha. Soo jeedaha iyo aqbalaha xiriir ma leeyihiin? Haa. Waa markay ay joogaan iyo markay maqan yihiin. Midda koowaad, heshiiska u dhexeeya dad isla joogaan, bayn al-xaadiriin labadood way joogaan. Waa marka labada daraf yeeshaan hal fadhi. Heshiis u dhexeeya dad isla jooga wuxuu kuntamayaa isla markaa ogolaanshaha la soo saaro. Midda labaad, heshiis u dhexeeya labada daraf aan isla joogin maqan. Labadan daraf islama joogaan, shaqana isla meelna ma joogaan. Heshiisaas ka waran. Taasi waa inta u dhexeeya laba daraf oo aan ku midoobin hal fadhi xaalad. Meeshan 4 aragti ayaan qaadanaynaa. 4taas aragti waxaa ka imaaday labada daraf hadday isla joogin waay. 4 aan isla akhrino. 4ta aragtiyood ayaa la soo bandhigay si loo go'aamiyo xilliga kuntamayo heshiiska. 4 aragti maxaa waaye? 4 qof ayaa ra'yi sheegeen. Aragtida koowaad, aragtida caddeynta ogolaanshaha. Heshiiska waxaa la soo gabagabeynayaa marka lagu dhawaaqo aqbalaadda. Aragtida labaad, aragtida soo bixidda aqbalaadda. Iyadoo la raacayo heshiiska ayaa la soo gabagabeynayaa marka aqbalaha soo diro aqbalaadiisa toos oo ah in si kasta loogu diro dhinaca kale.
saddex aragtida ogaanshaha aqbalaadda heshiiska waxaa la soo gabagabeeyaa marka uu soo jeediyaha ogaado ogolaanshaha uu soo saaray dhinaca kale. Xeerka Madaniga Soomaaliyeed waxaan rabaa in aan qodobka 8 qodob inaan ka tilmaamo. Qodobka 89aad labada qodob waa mid 89aad. Kan 89aad ayaan ku hormaraya. Qodobkaas wuxuu sheegayaa rabidda waxaa lagu sheegi karaa noocyada rabidda oo lagu sheegi karo. Labadan daraf rabiddooda maxay ku sheegi karaan? Labo faqro waaye. Faqrada hore waxay dhahaysaa rabidda waxaa lagu sheegi karaa af, qorid ama tilmaamaha caada ahaan la isla yaqaano, ama waxaa lagu muujin karaa in la qaato mowqif shaki ku jirin ee caddaynaya ulajeedada dhinacyada sida laga garan karo duruufta gaar ahaaneed. Faqrada labaad waxay dhahaysaa hadday rabidda way noqon kartaa mid ku timaada aamusnaan haddii uusan xeerka sheegin ama ayna dhinacyadu isku waafaqin in uu noqdo si qayaxan. Rabidda noocyadiisa ayaan qodobkan ku baranay. Qodobka 99aad waxay dhahaysaa ogolaanshaha ku saabsan heshiisyada loo hoggaansan yahay waxaa ku filan in la helo shuruudo uu horay u xadiday Rabuhu. Ninkan oo heshiiska hoggaansamida oo cuqud ninkan shuruudaha asu xadiday ayaa sidaas ayuu ahaaday. Aan ku celino amraad aan isla akhrino. Qodobka labaad qodobka 99aad ogolaanshaha ku saabsan heshiisyada loo hoggaansan yahay waxaa ku filan in la helo shuruudo. Heshiisyada la hoggaansan yahay waxaa ku filan shuruudo uu hore u xadiday Rabuhu hore shuruud u xadiday ayaa ku filan. Maanta waxaan jeclaystay inaan halkaas ku simo. Waa walaalkiin Fiqi Axmed. waad mahadsantihiin.